subaxnimadii saaka ahayd ayaa ay qaybaha kala duwan ee ku nool bulshada caasimadda Hargeysa waxay isugu soo bixeen dooxa weyn ee caasimadda Hargeysa kuwaas oo ay ka gurayeen qashinka hareeyay dooxa weyn ee caasimadda Hargeysa maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo qayb ka ahaa dad yowgii qashinka halkaasi ka gurayay waxaanu mikrofoonka la dhexmarnay qaybo ka mid ah bulshadii halkaas isugu soo baxday si aan wax uga weydiino dareenkooda ku aadan maalintani waxaan yiraahdeen maalweynaha dawladda hoose ee Hargeysa waxaan halkan uga direynaa fariin shacbiga reer Hargeysa in ay nagala shaqeeyaan soo baxa iyo nadaafada iyo maxay inay nadaafada nagala shaqeeyaan wax nala hagaajiya wadanka oo wadanka xashiishka ka ilaaliyaan muwaadin wadankaaga xashiishka ka ilaali oo qashinka ka ilaali oo xaad oo hagaaji hortaada hagaaji oo nadiif waxaan salaamayaa dhamaan maayirka waxa weeyaan maanta isku kaayay yaray waxa weeyaan anagoo dhalinyaradii ah inaan wax weyn ka qayb qaadano ololaha lagu nadaafinayo dooxa Hargeysa waayo waa halkii kaliya Hargeysa ay ka cabta biyaha daamaha oo dhani inta biyaha waxay ka cabaan halkan ay ka cabaan maadaama uu maanta maayirkii wax weyn Cabdikariin gartay in wax weeyaan nadaafada intuu wax weeyaan qashinku ku jira ayuu wax weeyaan cudurkuna ku jira marka waxaan leeyahay walaalayaal aynu ka qayb qaadano oo wax weeyaan aynu wadno oo dadaalkan aynu wadno waana ku ay ku amaanan yihiin maayirka iyo dhamaan shaqaalihiisu waxaan kula talinayaa shacabka Soomaaliland inuu ka soo qayb galo maalinta la isugu yeero ee xashiishka la gurayo waxaan kula talinayaa shacabka inay wax weeyaan qashinka ay guryaha hor dhigayaan iyo wax weeyaan dooxay keenayaan inay ka daayaan gawaariyaasha saaraan waxaan u aragnaa si wanaagsan awalba dawladdu waxay ku dhismayeen iska wax u qabso sidaanu taariikhda u hayno inkastoo aan garanayn oo ka yarayn si dawladda hore Soomaaliya iska wax u qabso lagu dhisi jiray iskuulada lagu dhisay miskiidada lagu dhisay wadooyinka lagu dhisay tii way inaga maqnayd maanta hadday inoo bilaabantay waanu soo dhaweynaa waanu shaqaynaynaa dadkana waxaanu leenahay muwaadil waa dalkaagii ee garadantaada ayaan dadweynaha farayna farintaasaan farayna geesta kalena waxa isaguna goobtaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge waxaanu yiri cashuur waa la qaado runta adu laakiin ma ogid cashuurta inta soo xaroota ma ogid ta kale adduunyada oo dhan wadamo boqolkiiba boqol dadkooda ay cashuurta bixiyaan ayaa dalkooda dhista iska wax u qabso ku dhista in dadku xigmadu ma aha inay dawladda hoose tahay in xashku ku kaligeed xigmadu waxa weeye inaynu muujino wadaniyad midnimo wada jir gamcays qabsi inaynu dooxan isugu nimaadno maanta oo aynu wada joogno oo aynu wada shaqeyno oo shirkadaha waaweyn ku dadka madaxda ka ah shaqaale hoosaadkoodii dawladda hoose maayirkeedii xogeeyaheedii maayir ku-xigeenkeedii gudoomiyaashii degmooyinka meel isugu wada yimaadaan shaqo wada qabtaan saacado badan qabtaan fariin weyn weeye marka fariintani way ka xigmad badan tahay cashuur ma la bixiyay cashuurtii maxaashka ugu qaadi weydeen way ka yes waan aaminsanahay marka cashuurta shacabku bixiyo boqolkiiba boqol inay tahay wax loogu qabto waana naga go'an tahay shilin kastoo dadka laga soo qaado inuu dadka ku noqdo waa go'an inta imika la bixiyo iyo inta qabyada ah maqaneen la bixin waa hawl dambe iyo tacab dambe laakiin dadaalkani uu ka macno weyn yahay cashuurta iyo ururinta kani waa wadaniyad waa wada lahaansho waa wax wada qabsi qofkaanu tusayna inuu wadan yahay wadankuna abaal ku leh maalin baad wadankaaga siinaysa one day saacad qofbana wuxuu dadaalka ka soo qayb qaadanaya saacadu haleelow mid baa duurka inoo iman mid baa casharka inoo iman mid baa imikeena la guraya marka arintu way ka salbalaanantay waya Abdillah Israshka telefishinka Saab Hargeysa